taariikhduna waa 4 May sanadka 2026 barnaamijka labaad waxaanu ku soo gudbinaynaa akhbaaraadka iyo wararkii soo kordhay intaynu kala maqnay Hormuz buuq fara badan ayaa ka taagan iyo xiisad warar kala duwan ayay Iiraan iyo Mareykanka soo kala saareen saacadihii la soo dhaafay wararka qaar waxay sheegayaan in maraakiib Mareykanku leeyahay nagta laga saaray oo kuwa dagaalka ah Mareykanka wuu ka jawaabayaa xaaladda guud waa sidee wararkii ugu dambeeyay oo aan soo ururiyay xiisadda colaadeed ee maanta ka taagan Hormuz ayaynu barnaamijka ku bilaabi doonaa qaybaha dambe ee barnaamijkana waxaanu ku soo gudbin doonaa hooyo muslima oo dhashay 9 caruur ah hal mar kaliya 5 sano ka hor ayaa maanta waxay u dabaaldegaysaa sanad guuradii shanaad ee caruurteeda 5 sano ay ka soo wareegatay iyagoo wada caafimaad qaba waana adduunka haweeneyda kaliya ee mar qura 9 caruur ah dhashay haddaba sidee wax u dhaceen caruurta iyo dabaaldegooda haddaba qodobadaas ayaynu barnaamijkeena ku soo qaadanaynaa intaanu ku jirno wuxuu warar soo kordhay May 2026 haddaba barnaamijka waxaynu kaga hadli doonaa intiisa badan Hormuz xiisada ka taagan haddaba marinbiyoodka Hormuz sheekadan cusub ee hadda colaada ee dhalatay waxay soo bilaabatay xalay san barnaamijkeygii koobaad ku soo sheegay Trump wuxuu yiri waxa la samaynayaa mashruuca xorriyadda wax la yiraahdo oo maraakiibta la xoreynayo waxa meesha ku xaniban oo dhan waa fasaxayna annaga iyo dawlado kala iskaashanayna waa asaasa sameyneen Iiraan waa tay diidanay oo ay u hanjabaysay barnaamijkii hore ka hadalna marka maxaa soo kordhay hadda marka waxa soo kordhay Iiraan waxa ay gantaal ku riday iyo rasaas markab doonayay inuu maro Hormuz oo marka maraakiibta dagaalka ee Mareykanka kamida haddaba sheekadu marka way qasantay rasaasa ku ridneen iyo gantaal saaruuqa ku ridneen Washington Post jaridda la yiraahdo Mareykanka iyaduna waxay qoraysaa 2 markab oo ganacsi oo Mareykanku leeyahay oo kuwii meesha ku xanibnaa oo calanka Mareykanka wata meesha soo maray maraakiibtan Mareykanka marka maraakiibtaas ay waardiyaysanayeen haddii la taabto inay iyaguna dagaalamaan marka buuqaasaa jira waxa soo kale Iiraaniyiintu ay leeyihiin wax soo mari kara meeshan iyo wax maray ma jiraan beenay dadkani isku akhrinayaan marka intaasoo warara oo kala duwan oo qolo walba waxay doonto sheegayso ayaa soo dhacay tan iyo intaynu kala maqnayn haddaba aanadi tusoo wararkii ugu dambeeyay haddaba mas'uul Iiraani ah ayaa u sheegay telefishinka Al Jazeera iyo wakaaladda wararka ee Reuters in markaasi Iiraan ay rasaas ku riday digniin ah markab dagaal oo uu Mareykanku leeyahay haddaba markabkan dagaal ayaa waxaa la sheegay inuu markaa isku dayay inuu soo maro qayb ka mid ah Hormuz waxaana la sheegay ilaa hadda tafaasiil badan aan loogu eegayn rasaasta iyo madfaca lagu riday markabka inay wax khasaare ah gaarsiisay ayagu marka waxay leeyihiin Iiraaniyiintu taxdiiri waay digniin rasaas iyo madfac digniin ah lagu riday maxaa gaaray marka ilaa hadda marka wax tafaasiil oo badan wixii gaaray wax kale iyadoo la haynin ayaa hadda waxa war soo saaray Washington ama dawladda Mareykanka haddaba waxaa la leeyahay Washington waxay beenisay in mid ka mid ah maraakiibteeda dagaalka uu la kulmay weerar oo la soo weeraray oo wax lagu soo riday isagoo hawshii ku jira mashruuca la yiraahdo xorriyadda oo Trump xalay uu ku baaqay tan iska dhexe ciidamada Mareykanka ee la yiraahdo CENTCOM ayaa sheegay in markab Mareykanku leeyahay aanu jirin oo kuwa dagaalka ah oo weerar lagu soo qaaday ama dhibaato loo geystay wuxuu yiri wax ka jira wararka la faafinayo oo sheekada ku saabsan ma jiraan
marka wararkaasa marka meeshaas halis weyna ka soo socota la leeyahay halis weyna meesha ka soo socota Iran waxay bilowday rasaas iyo madfac digniin ah maraakiibta Mareykankana waxay ku soo dhawaanayaan Hormuz marka waxa dhici kara lagu leeyahay saacadaha soo socda dagaal halkaas ayuu ka qarxi doonaa dagaal badda marka sheekadu marka halkaas ay maraysaa xaalkii ugu dambeeyay dhanka kale isla Hormuz aan ku jirnaa shirkadda shidaalka Abu Dhabi ayaa waxay ku eedeysay Iran inay weerar ku qaaday markab ay leedahay Imaaraadka oo shidaal waday haddaba markaan soo warbixintan oo goordhow yana soo baxday Imaaraadku waxay cambaarayeen in la bartilmaameedsaday oo Iran ay bartilmaameedsatay markab ay leedahay shirkadda yiraahdo Laadhanuk oo Imaaraadka ay leedahay taasoo ka gudbaysay marinbiyoodka Hormuz waxaana ay ku tilmaantay dawladda Imaaraadku weerarka inuu ahaa mid argagixisho ah waxaana ay sheegtay inay arinka ka digayso oo dhibaatada ay joojiso Iran dhanka kale Imaaraadku waxay sheegeen in ay heegan galeen kadib markii la sheegay in gantaal uu ku soo socdo wadanka Imaaraadka iyo Iran iyaguna halkaas ay isku hayaan Imaaraadka markabkayga maxaa loo weeraraa oo yiri markaba ka hadlaysa leeri hal gantaal loo dhiibaa leeyahay hadda Imaaraadku waxa leeyahay gantaalkii difaac uga jiraan marka sheekadaas iyaduna waliba waa wararkii Hormuz aad iyo aad ayay u qasan tahay xaaladda haddaba warar goordhow soo dhacay waxay sheegayaan in Mareykanku ay sheegayaan laba markab oo ganacsi oo iyagu ay leeyihiin inay maanta ka gudbiyeen si nabadgelyo ah marinbiyoodka Hormuz haddaba sidee wax u dhaceen Iiraaniyiinta iyagu wax wara oo ay ka soo saareen labadan markab ee Mareykanka ee ganacsiga ee halka gudubtay ma jirto marka kulay xaaladdu way kacsan tahay taag fara badan ka jira leeyahay meesha xaalku marka ma fiicna leeyahay waaye haddaba marka qaybaha dambe ee barnaamijka waxaan idinku hayaa arrin aad cajiib ah 5 sano ka hor haweeney muslimada oo u dhalatay wadanka Mali ayaa mar kaliya waxay dhashay 9 caruur 5 gabdhood iyo 4 wiil ma sha Allah ilaahay awoodiis waa 9 cunug oo hal mar ay dhashay waliba Mali waa laga soo kaxeeyay aaday caloosheedu u weyneed waxa la keenay Morocco isbitaal Morocco ku yaala lagu qalay waa 5 sano ka hor adduunkii ayaa bara qofkii ugu horeeyay bini aadam ah inta taariikhda la og yahay 9 cunug mar kaliya dhala waxay noqotay gabadha muslimada ah marka maanta waxa la gaaray sanad guuradii shanaad ilaahay wuu u badbaadiyay caruurtaas 4 wiil iyo 5 gabdhood waa u badbaadiyay iyagoo isla ciyaaraya iyagoo iskuul wada aadaya hal mar 9 caruurta hooyada iyo aabiyo hal mar wada kaxaynaya wadada dhan way kugu cariirinaya koox dhan oo socoto waay kooxda kubadda cagta ee garoonka gasha waa 11 waa maamada iyo odaga hadii lagu daro waa koox dhan oo socoto waay oo kubadda cagta ciyaaraysa ma sha Allah qoyska muslimka ah ilaahay marka waxay yiraahdeen wuuna barakay marka hore waa naxnay dad iska danyar ahaayeen waxay lahaayeen 9 cunug xagee wax uga keenaysan 9 waadika waxa cuntiin weysan laakiin ilaahay wuxuu noo sheegay qof walba risqiisu wata 9 cunug maanta 5 sano ayay gaareen aanadi tuso marka warbixin cajiiba marka hore telefishinka Al-Arabiya uu ka diyaariyay Al-Arabiya waxay leeyihiin sanadkii shanaad ayaa la gaaray qoyskan waxay u dabaaldegayaan reer Mali ah ninka la yiraahdo Abdul Qadir Arabi iyo Halima Sisi
waxay u dabaaldegayaan sanad guuradii shanaad ee caruurtoodii 9 ahayd ee mar kaliya ay dhashay gabadhaas. haddaba caruurtan ayaa waxaa la sheegay sanadkii shanaad inay ku jiraan noloshooda oo markaa hadda iskuul ay bilaabeen xaaladooduna ay caadi tahay. marka waa sheekarutii cajiiba waaye, awoodda ilaahay waaye. 9 cunug oo mar kaliya qoys iska danyaro waaye, hal maray dhashay. 9kii waa kuwaas way u joogaan, way isku faraxsan yihiin. ayadii odageeda 9kooday korsanayaan hal mar. 5 gabdhood iyo 4 wiil waaye. maasha allah, ilaahay ha u barakeeyaa leynadheen. idinkana u duceey, cidaan caruur haysanna in ilaahay siiyo u duceey. marka hawshaasu halkaasay maraysaa. qadar xayeysiisa kadib waxaan eegi doonaa bal wixii wararaya soo dhacay xaaladaha taagan, gaar ahaan Hormuz waxaan maraynaa qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka. warar soo kordhay ayaanu hadda gacanta ku hayaa. taliyaha ciidamada Iiraan ayaa hadlay, wuxuu sheegay annaga ku ridnay maanta madaafiicda markabka Mareykanka. waxbana la kuma soorin hadduu yidhaa waa beentiisu le. annaga ku ridnay gantaalaha, waxayna ahaayeen weliba fariimo digniina. raadaarkii uu soo dansaday markabka wuxuu rabay inuu Hormuz ku soo dhawaado. annaguna marka waa la soconay dhaqdhaqaaqiisa, annagaa ku ridno meeshan. marka wuxuu yidhi waa layn cas, ciddii soo gasha waa ku dhufaraynaa. Hormuz ciddii soo marta waa ku dhufaraynaa. marka hadda waa digniin, banaanka isagoo jooga soo dhawaada ku ridna gantaala, annagaana ku ridnoole. marka warkaas waa cusub yahay, isaguna uu soo baxay. dhanka kale imaaraadku waxay sheegeen wasaaradooda gaashaandhigga iyaduna goordhow waray soo saartay 3 gantaal oo Iiraan laga soo riday ayaan ka hortagnay dheh. 3 gantaal oo Iiraan laga soo riday ayaanu iska caabinay oo nala ku soo riday. sababta loogu ridayaa yaqaan lama yaqaano. Iiraan sababta ay imaaraadku u weerartay kollay waxbaa laga dareemay. imaaraadka waa loo juciyey marka waa arkaynaa. kollay wararkaas ayaa soo kordhay. wixii akhbaarada barnaamijyadeeda dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa. like garay oo share garay barnaamijka. intaan markale kulmayno asxaabay.